puntland mar kale waxay jab taariikhi u geysatay kooxda daacish iyada oo xubnihii ugu fara badnaa ka dishay kooxda meydadka kooxda oo nafbaxaya ayaa muuqaal laga soo duubay waxaana muuqaalkan iyo warbixintan idinkula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka meydadkii ugu badnaa ee kooxda firxadka oo furimo hor iyo goobaha waaweyn laga qabsaday iyo goobaha iminka la isla joogay ee dagaalka madaxweynaha puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo lagu eedeeyay ayaad maqli doontaan isagana in uu mucaaradkiisa beegsanayo oo xabsiyadu uu ku gurayo walibana siyaasi weyn ayuu xiray oo xisbiga midaya ka tirsan warbixintan ayaa labada macluumaadba ku dul istaagi doonaa muuqaalkan la gareeya channelkana subscribe saara haddii aan ku bilaabo warbixinta ku saabsan duqeymihii Mareykanku habeenna ka hor fuliyay faafayna ayaa ka soo baxaya duqeyn habeen ka hor Mareykanku uu ka fuliyay xoga hoose iyo xasaasi ayaa laga helayaa dawladuna xoga ayay tilmaantay waxa uu dubuuraha caalamiskaad ka fuliyay habeenna ka hor diyaaradaha Mareykanku duqeyno khasaaro weyn lagu geystay kooxda Daacish diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka oo adeegsanaya bombooyinka culus ee burburiya difaacyada adag ayaa beegsaday saddexdii talis ee ugu muhiimsanaa oo ay kooxda Daacish ku lahaayeen inta u dhaxaysa Toga Miiraale iyo sidoo kale Baalade kuwaas oo horay loo sahmiyay isla markaana iminka la beegsaday ila wareediye amni oo ka tirsan Puntland waxay sheegeen in talisyadaasi la burburiyay ay ku jiraan godad waaweyn oo dhaca inta u dhaxaysa Miiraale iyo Toga Baalade kaas oo ay si gaar ah ugu dhuuman jireen hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan kooxda Daacish isla markaana ay aaminsanaayeen inay duqeymaha waxba aysan ka tari karin balse gabi ahaanba dhulka la simay waa goobo adag oo buura salkooda oo ay aaminsanaayeen hogaamiyaasha sarsare ee firxadka ee Daacish in duqeymuhu aysan ba halkan wax ka tari karin laakiin duqeymo loogu talagalay ayaa dhulka la simay ayaga godadkii ay deganayeen ayaana lagu burburiyay duqeymaha Mareykanka ayaa sidoo kale burburiyay talis labaad oo ay kooxda Daacish ay ku kaydin jireen noocyada kala duwan ee saadka halkaas oo ahayd ceelbiyood muhiim ah oo dhacana waaxiga Toga Miiraale oo ay hadda markaasi ku go'doonsan yihiin dagaalamayaal kooxda Daacish ka tirsan oo sarsare taliskii saddexaad oo ahaa Miiraale waxa duqeynta ayaa burburisay wixii hub iyo sidoo kale saanad ciidan ee ku harsanaa kooxda oo halkaas u yaalayna waa ay tageen oo way ku daayeen isla markaana waxa ay noqdeen wax gubtay oo baabay dhamaantoodba waxa ku jiray hoobiyaal waxa sidoo kale meeshaasi ku lumay rajadii yareed ee maleeshiyaadka Daacish ay ka qabeen inay sii joogaan Miiraale iyo sidoo kale Baalade sare ee halkaas ku yaala rajadoodii ayaa si xumaatay firxadka ayagoona ay hogaamiyaashooda iyo inta kooxda ee firxadka ee horay goobihi ay ku sugnaayeen looga qabsaday ay markaasi qorshahoodii labaad ama balanbigoodiina iminka la beegsaday oo digada laga dhigay dhinaca kale tana waa la Puntland hadashay oo ciidamada difaaca Puntland ayaa iyaguna goor dhaweeyay war soo saaray howlgal ay sameeyeen buraha caalamiskaadii iyo iyaguna gudaha u galay deegaanka la yiraahdo Aleelo yar oo ka tirsan Toga Miiraale oo kamid ah goobihii Mareykanku uu duqeeyay habeenna ka hor halkaas oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka Daacish xafiiska warbaahinta u qaabilsan ciidamada difaaca Puntland qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidanka Puntland ay gudaha u galeen deegaanka la yiraahdo Aleelo yar oo ka tirsan Toga Miiraale oo kamid ah goobihii Mareykanku duqeeyay habeenna ka hor halkaas oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka Daacish xafiiska warbaahinta ciidamada difaaca Puntland waxa uu sheegay in uu markaasi deegaanka la yiraahdo Aleelo yar ay ciidamada Puntland ugu tageen meydad maleeshiyaadka Daacish ay kaga dhintay duqeyntii iyo hub iyo agab kale oo ciidanka halkaas ay ciidanku ay ugu tageen waxayna gudaha u galeen baa la sheegay deegaanka la yiraahdo Aleelo yar oo habeen ka hor Mareykanku uu duqeeyay waxay ka tirsan tahay Toga Miiraale waxay halkaasi ciidanku ugu tageen meydad fara badan oo Daacish ah oo markaasi ku dhintay duqeymahaasi sidoo kale hub ayaa loogu tagay iyo agab kale oo ciidan iyo agab kale oo Daacish muhiim u ahaa muuqaalada la soo duubay waxa ay muujinayaan Daacish fara badan oo meyd oo halkaas yaalay kuwa dhaawacyadoodii ayaga oo naftu ay ka ciriq leedahay halkaas loogu tagay kuwa ayaa muuqaal laga dubay ayaga oo naf baxaya isla markaana si toos ah muuqaal looga dubay kuwa soo baraha bulshada gaar ahaan Telegramka lagu baahiyay muuqaaladooda
waxay ahaayeen dad ajaanib oo cadcad oo kadigoodba ajaanib badnaa kuwaas oo markaasi ka mid ah kuwa ugu dagaalamaya kooxda daacish oo ajaanib u badneed intii dagaalka socday waxa ugu badan ee gacanta lagu dhigayay iyo waxa ugu badan ee meedadkooda la helayay iyo waxa ugu badan ee mar walba daroonada iyo muuqaalada ka soo muuqanaya ee dagaalamaya waxay ahaayeen ajaanib carbeed oo markaasi ka yimid dalal kala duwan oo Carabta Marooka iyo meelo kaleba ah kuwaas oo markaasi u dagaalamaya kooxda daacish in badan ayaa wali buuraha ku sugan sida ay xuquuqdu tilmaamayaan kuwaas oo la leeyahay wali waxay rajo ka qabaan inay buurahani mar kale ay halkoodii ka siimiisaan isla markaana ay mar kale dib isku soo asaasaan isla markaana ay mar kale noqdaan cududii shalay ee ciidamada Puntland kala jabiyeen ee daacish macluumaadka halka uga limaana dhinacan markaana xukuumadda madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu hogaamiyay ee Puntland ayaa waxa lagu eedeynayaa in ay beegsanayso siyaasiyiinta ka ra'yi duwan iyadoona shalay xabsiga dhigtay siyaasi ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Mideeye siyaasigan oo lagu magacaabo Axmed Shire Yaasiin ayaa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya bayaan ka soo baxay xisbiga Mideeye ayaa si adag loogu cambaareeyay xariga siyaasigan oo ku tilmaameen mid sharciga ka baxsan waxa lagu yiri qoraalka xisbiga Mideeye waxa uu si adag u cambaareynaya xariga sharci darrada ee loo geystay Axmed Shire Yaasiin oo mas'uul sare oo ka tirsan xisbiga ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee Mideeye xisbiga ayaa ka digay xariga siyaasadaysan ee dawladdu ku caburinaysa xisbiyada mucaaradka wuxuu ku baaqay in si degdeg ah oo shuruud la'aan loo sii daayo Axmed Shire oo xorriyadiisa uu dib u helo ma aqbalayna buu yiri xisbiga Mideeye in Puntland ay ku dayato dhaqanka laga soo manguriyay Somaliland oo qof kasta oo caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya taga lagu xiro Puntland waxa inay dhowrto dastuurka iyo xeerarka u yaala ayna markaas xaqiijiso xornimo muwaadinimo iyo wada noolaansho bulsho ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xisbiga Mideeye ee markaasi kana hadleen in arinta ku saabsan siyaasigaas looga xiray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland sababta Puntland ay xilli siyaasigan lama oga xog badan lagama hayo laakiin waxa la sheegayaa inay jiraan waxyaabo kala duwan dawladdu dadka siyaabo kala duwan bay uga hadlayaan oo ay leeyihiin Puntland waxay ninkan u aragtay in uu markaasi ka soo horjeedo siyaasadeeda iyo nidaamkeeda federaalka ku wajahan iyo arrimo kale ayaa markaasi la soo warinaya laakiin siyaasigaas la xiray waxa ay dadku leeyihiin waxa uu hordhac u yahay ama tusaale hordhac ka bixinaya damacyada madaxweyne Dani iyo qorshayaasha soo socday oo doonaya inuu ku beegsado cid walba oo isaga ka aragti duwan oo haday ahaan lahayd heer federaal iyo heer Puntland waana siyaasad markaasi muujinaysa baa leeyahay inay markaasi madaxweynuhu uu qorshayaal kala soo wado intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijkan gaarka oo aan ku eegnay dagaalada Puntland iyo duqeymihii dhacay iyo wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay iyo wararkii kale ee Puntlandba muuqaalkan la gare channelkana subscribe saar soo dhawaada mar walba